Assalaamu calaykum kusoo dhawaada qaybtii labaad qaybtii koowaad waxaan ka hadlaynay waxa weye explanation waxaan sharaxayay waxa weeye methodyada ama life cycle-ka aan u isticmaalayno maaragtay state ama widget uu meesha ku dhex jiro marka example ayaan ka bixinaynaa hadda marka inta appka ayaan haystaa marka appka waxa weye stateless widget weeye kabacdi markaan ku dhufano hodhowti waxaan aadaynaa stateful widget life cycle hodhowti userka markuu ku dhufto numberka kor ayuu sii kacayaa marka haddaan aragno waxa waaye mainka appkan ayaan run dhahaynaa marka appkan marka haysano widgetka waa build ayaan dhahaynaa material bannerka meeshan uriska bannerka off ayuu yahay kabacdi my home waxa waye stateless widget weeye haddaad xasuusatay stateless widget waxaan ka hadlanay waxa weeye widget aan isbedelayn for example tusaalahan haddaan kaa tuso for example miis ayaan meel ku haynaa miiskaas isma dhaqaajinayo ilaanaan maaragta haddii aadan la dhaqaajin marka miiskaas meeshaas ayuu iska oolaya marka stateless widget markaad maqashid waa miis oo meel iska yaalo oo cidna aysan dhaqaajin marka stateless widgetkan ayaan haysanaa stateless widgetkan hodhowti appboard ayaan haysanaa appboardka waxa weye title wuxuu dhahay Flora stateless widget life cycle kabacdi bodyga waxaan haysanaa center widget centerkaas widget waxaan haysanaa buttonkaas markaan ku dhufano waxaan aadaynaa maaragtay my page my counter page ayaan aadaynaa childku wuxuu leeyahay waa text aan ku dhufanay counter page markaan aadno counter page kabacdi counter pagekan maaragta waxaa weeye stateful widget waaye stateful widgetna waxa waa widget aanan isbedelayn oo maaragtay no stateless widget waxa widget isbedelaysa for example hadduu userka ku dhufto for example userka hadda numberkan waa haddaan ku dhufano userka 1 ayuu isku bedelayaa 2 ayuu isku bedelayaa marka waxa weeye my counter page waxa weeye stateful widgetna waxa weeye widget markasta markuu isbedelo applicationka dhan build ama rerun ayaan ku sameynaynaa saan mar labaad u dhisno widgetka ama UI-ga saan mar labaad u dhisno markay wax isbedelaan for example hadda 3 waaye 3gan haddaad ku dhufano 4 ayuu isku bedelayaa marka waxaan sameynaynaa user interfaceka ama UI-ga dhan ayaan mar labaad wada dhisaynaa marka stateful widget saas weeye marka wax isbedelaan wax kasta wey haddana sidii hore wey wada mar labaad waa dhisaynaa marka waxaan sameynaynaa saa u ogaata meeshay wax ka socdaan first waxaan print state ayaan soo dhahaynaa some changes ayaan ku sameynaynaa kabacdi waxaan dhahaynaa print my stateless widget constructor marka print statement ayaan sameynaynaa kabacdi constructor haddaad xasuusatay stateless widget waxa weeye constructor and then build kabacdi build markaan imaano waxaan leeynaa print build method is called kabacdi marka waxaan sameynaynaa constructorka ayaan dhisaynaa object ayaan dhisaynaa oo meeshan ka dhisaynaa marka objectiga markaan dhisno kabacdi waxaan dhahaynaa print stateless widget constructor kabacdi build widget ayaan print dhahaynaa kan ayaan soo waxeynaynaa kabacdi markaan ku dhufano haddaan aadno markaan ku dhufano for example waxaan dhahaynaa print saan spacery waxaas u sameyno hodhowtii waxaan aadaynaa buttonka markaan ku dhufano waxaan aadaynaa my counter pagena waxa weye stateful widget weeye marka stateful widget waxa weye marka koowaad waa inaan sameynaa create state waa inaan dhisnaa create object waa inaan dhisnaa stateka ama objectka waa inaan dhisnaa marka waxaan qorayaa print state ayaan sameynaynaa marka waxaan dhahaynaa print object state object is created okay marka hore objecti ayaan dhisaynaa kabacdi return ayaan dhahaynaa objecti aan dhisnay okay marka
waa step 1 weeye. Step 1 waa waxaan dhisaynaa object ayaan dhisaynaa waayo my pagekan wuxuu extends wuxuu inheritance wuxuu ka sameynaya ama wuxuu isticmaalaya methodka ama wixii uu lamid ah stateful widget. marka classkan wax kastoo stateful widget ah ayuu maaragtay isticmaalayaa. marka koowaad waxaan dhahaynaa state object ayaan sameynaynaa. marka state object markaas sameyno kabacdi private class ayaan haysanaa oo my counter page statekan wuxuu extends ama waxaan extend ka sameynaynaa state object. statekan waxay haynaysaa meel kasta uu marayo. marka haddaan stateful widget haddaan xasuusano init state ayaan haysanaa. horoti init state haddaad aragtid wuxuu haystaa override macnaheeda waxa weeye markaan sameyno maaragtay page statekan waxaan extend ka sameynaynaa state objectigan wuxuu leeyahay init state. marka waxaan dhahaynaa override waxaan dhahaynaa wax kasta oo statekan leeyahay waan isticmaalaynaa. sidoo kalena waxaan sameynaynaa our own initialization. marka waxaan override markaan sameynayno wax kastoo uu kan leeyahay ayaan maaragtay override ama maaragtay waxaan anaka qornay aan kusii sameysanaynaa. marka superna waxa weeye waa keyword. marka superkan wuxuu sheegayaa maaragtay parents ama maaragtay classkii sameeyey waayo haddaan xasuusano my state object ama statekan wuxuu maaragtay extends ama wuxuu kasii wadayaa state objectigana wuxuu leeyahay on init state. marka statekan markaad create ama markaad sameyno wuxuu la yimaadaa ama uu maaragtay la socdaa state uu asi gooni u leeyahay. markaan dhahno super.init state waxaan dhahaynaa parents ama classka oo maaragtay aan extend ka sameynayno ama inheritance aan ka isticmaalayno wuxuu leeyahay method kastuu leeyahay. kaas ayaa marka hore initialize dhahaynaa. marka initialize dhahno kabacdi waxaan sameynaynaa our own initialization. kabacdi wax program ama codeka aan qorno ayaan kasii wadaynaa. marka here dhinacan waxaan sameyn karnaa maaragtay API calls ama maaragtay HTTP wax kasta aan u baahannahay aan rabno initialize inaan ku sameyno ayaan inta ku sameynaynaa. laakiin for now hadda waxaan dhahaynaa print waxaan dhahaynaa init state method is called. marka hadda waxaan print state ayaan sameynaynaa saan u ogaano haddii oo maaragtay kan aan u wacnay intaana maaragtay methodkan build widget intaana sameyn. marka haddaad xasuusatay kan waxa weye step 2. kabacdi sidoo kale waxaan haysanaa maaragtay did change dependency. sidoo kale maaragtay did change dependency haddaad ogaatid super ayuu leeyahay isna did change dependency. sidoo kale maaragtay statekan aan extends aan kasoo qaadanayno statekan ama si isticmaalayno isna wuxuu leeyahay super did change dependency. marka wax kastuu la yimaado ayaan marka hore initialize ku sameynaynaa. kabacdi to-dogan waxa weeye our own did change dependency. haddii wax isbedelaan dependency. so inta waxaan sameynaynaa maaragtay haddii wax isbedelaan for example waxaan widgetkan ayaan isbedelay for example numberkan ayaan waan bedelnay waxaan ka dhignay 1 2 ayaan ka dhignay. markii wax isbedelaan did change dependency ayaan u wacaynaa. horoti haddii wax isbedelaan saan maaragtay wax usii sameyno haddii aan rabno stateku meeshu marayo. marka did change dependency waa step 3 waaye haddii aad maaragtay rabtid inaad isticmaashid. muhiim maaha inaad isticmaashid laakiin haddaad rabtid always kan ayaan u wacaynaa init state markuu dhammaado second one ka ku xiga waxaa did change dependency. marka waxaan sameynaynaa so this method is called when UI changes. hadda waxaan dhahaynaa just print state ayaan u wacaynaa. waxaan dhahaynaa did change dependency is called
sidoo kale maaragtay step 3 haddaan haysano step 3 I mean step 4 waxaan haysanaa did update widget. marka sidoo kale did update widget override ayaan ku sameynaynaa, waayo waxaan sameynaynaa markaan wacno kabacdi waxaan sameynaynaa our own program gooni noo ah ayaan sii sameynaynaa. So that's why sababta saas ayaan u isticmaalaynaa override, waayo override markaan sameyno waxaan isticmaalaynaa maaragtay waxaan u sheegaynaa maaragtay functionkan wax kastuu leeyahay ayaan isticmaalaynaa, sidoo kalena anaga programaan sameynay ayaan kusii taraynaa. marka sidoo kale waxaan dhahaynaa print, sidoo kale waxaan dhahaynaa did update method is called. haddaad ogaatid functionkan waxaan u wacaynaa markay wax isbedelaan. sidoo kale haddaa xasuusat wuxuu qaataa maaragtay old widget, marka statekii hore ayuu haystaa. marka waxaan rabnaa markii aan maaragtay uu wax isbedelo inaan maaragtay new state inaan create sameyno. marka create new state object, marka object cusub ayaan rabnaa inaan sameyno. marka waxaan sameyn karnaa waxaan dhahaynaa my counter page kabacdi widget.counter ayaan siinaynaa. hodhowti new object ayaan sameynaynaa. marka waxaan u baasaynaa counterka meeshuu marayo. for example haddaan maaragtay counterka 2 hadduu yahay 2 ayaan u baasaynaa suu stateka meesha kasii socdo. waxaan rajeynayaa inaa fahantay. sidoo kale super init ayaan u wacaynaa, waayo statekan maaragtay wuxuu haystaa all of this method ayuu la yimaadaa. marka initialize ayaan ku sameynaynaa method kastuu la yimaado, kabacdi override ayaan ku sameynaynaa saan u sameyno program oo aniga noo gooni ah saan rabno inaan u shaqeysano. kabacdi step 5 waxa weeye maaragtay dispose function. dispose ayaan u wacaynaa, kabacdi dispose sidoo kale waxaan wuxuu sameynayaa maaragtay clean up ayuu sameynayaa ama maaragtay destroys ama waxa dhan ayuu soo wada maaragtay uu clean up ku sameynayaa. marka print ayaan dhahaynaa. print markaan dhahno waxaan dhahaynaa dispose method is called. sidoo kale waxaan rabnaa markaan functionkan markaan u wacno widget maaragtay .count waxaan rabnaa 0 inaad ku bilowno, waayo widgetka haddii oo maaragtay aan ka laabano aan inta imaano waxaan rabnaa inuu maaragtay counterka aan 0 ka bilowno. markaas hodhowti dispose function ayaan u wacaynaa. markaas hadda waxaan sameynaynaa restart ayaan applicationka dhahaynaa saan u aragno stateka meeshuu marayo. haddaad aragtid waxaan print dhahnay my stateless widget constructor, waayo haddaan aadno main functionka marka koowaad statekan ayaan waxaan sameynaynaa my stateless widget constructor ayaan sameynaynaa. kabacdi constructorka markaan sameyno print ayaan dhahaynaa. kabacdi markaan constructorka sameyno waxaan sameynaynaa widgetka build widget ayaan u wacaynaa. build widgetna markaas ayaan u wacaynaa. hadda markaan aadno hadda kan waxa weeye stateless widget waa markaan ku dhufano my stateful widget haddaan aadno waxaan arkaynaa waxaan print dhahaynaa state object created. marka koowaad waxaan sameynaynaa object ayaan dhisaynaa. objectii markaan dhisno print ayaan dhahaynaa. kabacdi waxaan u wacaynaa init state. init state markaan u wacno waa kaas init state method is called. marka koowaad object ayaan dhisnay, kabacdi waxaan wacnay init state. init state markuu soo dhamaaday functionka markuu soo dhamaaday waxaan u wacnay did change dependency ayaan u wacnay. did change dependencyna waatanaa. kabacdi hadda kuwaan maana u wicin did update change iyo kuwaan maana u wicin, laakiin haddaa ogtahay stateka waxa weeye 0 counterka haddaa ujeedid waa 0, laakiin haddaad ku dhufano counterka kan ayaan u wacinaa, waayo statekii ayaan isbedelay. counterkii waxaan ka dhignay 1 ayaan ku bedelnay, sidii oo 0 ayaan waxaan ka dhignay 1. hadda markaan ku dhufano waxaan u wacinaa did update change. markaan ku dhufano waa kaas okay, so something is wrong.
so isma bedelayo marka waxaan sameynaynaa functionkan ayaan inta ka qaadaynaa markaan buttonka ku dhufan oo isbedelo stateful widgetka markaan buttonka bedelno ayaan waxaan u wacaynaa maaragtay did update change kabacdi kan ayaan u baasanaa okay hadda markaan save gareyno san mar labaadaan wada sameys okay so hadda waa soo bilaabeynaa haddaan marka waxaan u wacnay hadda let's start again so waxaan mar labaad ayuu isbedelay laakiin waxaan u wacnay my stateless widget ayaan u wacnay kabacdi build widget markaan ku dhufano counterka markaan ku dhufano hadda waxaan u wacnay waxaan sameynay object ayaan state object ayaan sameynay init state ayaan u wacnay did change dependence ayaan u wacnay hadda markaan bedelno waxaan u wacnay did update change because numberka counter ayaan waxaan ka dhignay one-kii ayaan ku bedelnay hadda mar labaad sidoo kale update ayaan did update change ayaan u wacnay marka did update change wuxuu shaqeeyaa sida maaragtay haddaan aadno did update change wuxuu shaqeeyaa sida maaragtay set state camal ayuu shaqeeyaa marka badanaa marka aan Flora application markaan sameynayo ma isticmaalo did update change badanaa waxaan isticmaalaa set state ayaan isticmaalaa laakiin waxaan ku tusinayaa saan u ogaatay bes laakiin you don't have to waa set state iyo maaragtay iyo did update widget change isku mid waa labadooda marka haddaad set state isticmaalisid muhiimadda maaha inaad u wacdid did update change laakiin waa ogaan kartaa marka hadda last step waxa weeye maaragtay dispose marka haddaan screenkan cancel haddaan ku laabano screenkii hore waxaan u wacaynaa dispose ayaan u wacaynaa hodhowti numberka 0 ayuu kasoo bilaabanayaa marka haddii aan maaragtay haddaan ku tuso haddaan dhahno widget count let's go back haddaan marka mar labaad save haddaan dhahno aan ku laabano aan hodhowti numberka haddaan bedelno hodhowti dispose markaan dhahno numberka waxaan ka dhiganaa 0 marka clean up ayaan ku sameynaynaa hodhowti markastaan ku dhufano numberka markaan screenkan kasoo laabano numberka waxaan ka dhigaynaa 0 ayaan ka dhiganaa marka saas weeye state objectiga stateful widget marka waa inaad xasuusataa muhiimadda waxa weeye init state markaa isticmaalaysid initialization ayaa waxaa rabta ku sameynaysaa haddii aad maaragtay animation haddaad isticmaalaysid wax kasta inta ayaad initialize ku sameynaysaa anything aa u baahan tahay init state waa inaa initialize ku dhahdaa wixii aan data u baahan haddii aad maaragtay API waxaad u baahan tahay meeshan ayaad initialize ku dhahaysaa kabacdi haddaa rabtid maaragtay did change dependency haddaa rabtid UI-ga ama hadday wax isbedelaan haddaa rabto hodhowti inaad u wacdid wax hadday isbedelaan waxaan u wacaysaa did change dependency ayaad u wacaysaa hadday maaragtay user interfaceka waxun hadday isbedelaan ayaad u wacaysaa sidoo kale did update change hadday maaragtay widgetka hadduu isbedelo kabacdi did update change ayaa u wacaysaa laakiin kan muhiim maaha waayo set state ayaad u wici kartaa hadday wax isbedelaan sidoo kale maaragtay muhiimka waxa weeye dispose muhiimadda kan weeye haddii aad maaragtay wax samaysid ama object haddaad dhistid waa inaad clean up aad dhahdaa haddii kale dib ayaan imaan karaa memory problem iyo waxaasaad ku imaanaya markasta aadan isticmaalayn waxaad u wacday make sure waa muhiimad weeye inaad maaragtay clean up aad dhahday ama aad maaragtay asturtay wixii aad samaysay inaad maaragtay aada maaragtay si aanan sii isticmaalin hodhowtina build widget ayaan u waceynaa marka intaas ayaa raba inaan ila share gareeyo marka haddii aad wax fahmin comment soo dheh saa hodhowtii aan kugu sharaxo si dheeraad ah marka waad ku mahadsantihiin